السلام عليكم soo dhawaada asxaabay taxana sheeko xiiso badan ayaan noo bilaabmi doonaa taxanuhu muxuu ku saabsan waa boqoradii meerayaasha hordhaca sheekada kaliya waxaan sheegi karaa in 10 sano jirkaygu meydaan waxba dhaamin uu yaalay isagoo aan daboolnayn god ku yaala deegaanka Arizona ee dalkaasi Mareykanka dhageystayaal waa sheeko xiiso leh taasoo laga soo guuriyay buug sheeko Amerikaan ah waxaana sheekadan lagu magacaabaa boqoradii meerayaasha waxaana qoray qoraa Amerikaan oo lagu magacaabo Mr. Prof waxayna ku saabsan tahay sheekada nin safar aan caadi ahayn ku tagay meere dhulka bini'aadamku ku nool yahay ahayn oo cilmiga juqraafiga lagu sheego Allah ayaa si og xilligii 1800 waxa uu ninkaasi halkaasi kula kulmay waxyaabo mucjiso ah isagoo arkay muuqaal ka yaabiyay waxa uu markii hore ninkaasi noqday maxbuus kadibna waxa uu ka mid noqday askarta meeraha dagaal badan oo uu galay kadibna waxa uu suuro gashay inuu ka mid noqdo qoys reer boqor ah oo iyana ku noola meero dhul aan ahayn kan uu markii hore tagay ninkan oo lagu magacaabo John Carter ayaa sheekada uu naftiisa ka sheekeynay waxa uu ku bilaabay sidan waxaan ahay nin daa inta sano ay daadaydu tahayna ma garanayo waxa macquul ah in boqolaan gaaray ama aan kor u dhaafay laakiin xaqiiqadii ma sheegi karo maxaa yeelay weligay ma xisaabin daadayda sida looga bartay ragga kale inkastoo taasi jirto haddana in badan oo noloshayda ah ayaan xasuustaa maanta 40 jir ayaan u muuqdaa daadaas oo aan sanado badan ka hor ahaa laakiin waan rumaysanahay in aanan weligay noolaan doonin maalin baan dhimanaya dhimashada dhabta ah oo aysan jirin cid ka baxsan karta ma garanayo waxaan uga baqdo dhimasho horey baan 2 goor u dhintay laakiin hadda waan noolahay weligay hore ma aanan u sheegin qisadan igu dhacday waxaan ogahay in maskaxda bini'aadamku marnaba aaminayn maxaa yeelay qisadaydu ma ahan mid la fahmi karo mana sharxi karo waxa igu dhacay kaliya waxaan sheegi karaa in 10 sano jirkaygu meyd aan waxba dhaamin uu yaalay isagoo aan daboolayn god ku yaala deegaanka Arizona ee dalkaasi Mareykanka John Carter oo inta hore dhac ka dhigtay ayaa sheekada hore u sii galay waxa uu yiri waxaan ku noolaa gobolka Virginia ee dalka Mareykanka halkaas waxa ka dhacay dagaal sokeeye waxa dhacday in dhibaatada jirta ay gaarsiisay in ay hoy la'aan noqdo lacag wixii aan haystana iga dhamaato sidoo kalena ay igu dhacdo shaqo la'aan waxaan go'aansaday in aan keeno qorshe aan naftayda ku maareeyo oo wanaagsan waxa uu qorshahaygu noqday in aan baadi goobo dahab kaasoo lagu sheegay in laga heli karo lama deegaan ku yaala koonfur galbeed America muddo ku siman hal sano ayaan ku bixiyay raadinta godadka dahabka laga helo waxaana safarkaasi igu helanayay nin askari hore ahaa oo la odhan jiray Captain James Power oo qudhiiso reer Virginia ilaaha runtii nasiib wanaagsan ayaan yeelanay markii hore maxaa yeelay sanadkii 1860 ayaan helnay dahab ku dhagan dhagxaan saaxiibkayga safarkaygu wehelinayay ee Paul isagu waxoogaa cilmi ah ayuu lahaa dahabka iyo istaamiisa iyo qiimihiisa waxa uu wargeliyay in aan helnay dahab u qalma $1 milyan waxaana istusnay in haddii aan shaqada sii wadno aan heli karno dahab fara badan balse dhanka kale ayaan iyana iska tusnay in aan nahay 2 nin oo aan wadan qalab sidaas oo casriyaysan sidaa daraadeed ayaan go'aan ku gaadhnay in Paul uu aado tuulada noogu dhow si uu noogu raadiyo qalab iyo waliba rag naga caawiyo shaqada 3 Maars 1866 ugu dambeyn Paul uu iga tagay isagoo u dhaqaaqay go'aankeena sidii uu hirgelin lahaa waxa uu qaatay faras isagoo ka sii daadegay buur aad u dhaadheer oo ku yaala meesha aan joognay oo dooxa ahayd aniguna cabaar ayaan si fiirfiirnay ilaa uu saaxiibkayga muuqan waayay subaxii saaxiibkay baa weliga dhaqaajiyay waxay la mid ahayd subaxyada kale ee lama deegaanka koonfur galbeed America iyadoo subaxaasi ahaa mid iftiimiya oo qurux badan wax badan kama soo wareegin markii anigoo socod ku geynay dooxadii aan arkay 3 nin oo saarnaa fardo oo goob ku wada sugnaa waxaan isna goobtii meelaan ka fogeyn ku arkay saaxiibkay Paul in muddo markaan kor ka eegay waxaan niyada ka soo goostay in 3 nin yihiin cadow waliba ay ka tirsan yihiin qowmiyadda Hindida cascas ee loo yaqaano Ali Bestein ee waddanka Mareykanka ku nool saaxiibkay Paul waa la socday inuu si fiican u hubaysnaa isla markaana uu ahaa askari khibrad leh laakiin meesha way ku jirtay inuu u baahan karo caawimaad waxaan la soo baxay hubkaygii saarnaa faraska waxaan sidii ugu macquulsanayd oo ugu dhaqsiyaha badnayn isugu shubay dhankii Paul bidhaantiisa iga muuqatay waxaan had baqar ka soo boodo oo dul soo jeexaba habeenkii ayaa dushayda ka madoobaaday maraha bidhaanta aan kor ka arkayay waxaan islahaa way ku dhowdahay laakiin waxa ay cadaatay in meesha aan saarnaa oo dul saar ahayd iqaladay waan degdegay oo socodka xawaarihiisaan kordhiyay waxaan bartanka ugu soo dhacay xeraya waxaan isha ku dhuftay saaxiibkay Paul oo dhulka yaala kama aan fikirin waxaan qabto bas isla markiiba ficil ayaan ku dhaqaaqay
waxaan la soo baxay qorigaygii. daawada sheekadu waa taxane, intani waa qaybtii koowaad. la soco qaybta labaad oo kasii xiiso badan intan. fiidiyowga haddaad ka heshay like saar, haddaad nagu cusubtayna subscribe saar oo nagu soo biir. wasalaamu calaykum.